ما هي صحوغا شلماده wax badan uma baahan wado inaan ku saacideeyo waxaan leeyahay kulan muhiim ah ifaan kaliya waxaan u baahanahay waa shilmada waxaad u baahan tahay inaan ku bar sidaad nafsadaada u saacideyn lahayd maxaad yeelay hore umaada soo shaqeeyay jaaw igaraal noqo mudane fadhigan wadada meelo goysii kartaa waa ugu culus yahay runtii waan dhaqaaji waayay arrintaas waxay u baahan tahay waqti dheer anigana waqtigaas ma hayo waa inaad ninkaaga u wacdaa si uu kaaga caawiyo hadda ninkayga taasi waa dhibaatadaada shakhsi ahaaneed ee ma ahan dhibaatadayda iyo mid i qusayda toona i dhegayso maadham hadalkaaga iga soo gabangabee kulan ayaan ka dahsanahay jaaw shit waqtigayga wuu dhacay meel walba waxaa jooga doqomadan aan ku fahmay mudane iga raali noqo ma garanaysaa sida lugta gaariga looga bedelo dabcan waan sameeyaa isug maad i tusidid si aan u sameeyo aabbaha kuma soo korin miya asaga ayaa laga rabay waxbarashadaada markii aad sidaanoo dhan u weynaanaysay haa laakiin hadda hadalkaas u akhri dadka waqtiga u haya oo keliya hagaag ay waan daahay ma ka saaciidayn karta hooyada ah inaad waddada goysiiso waan daahay run ahaantii si kastay ahaataba waddada waa inaad i goysiisaa dhib may leedaha taas hagaag laakiin waan degdegsanahay soo dheere laakiin waa maxay degdegu waxaan u socdaa dallacsiin maanta ayaa la i dallacsiinayaa maamulahaygana daahitaanka waa u necab yahay runtii taasi waa mid xiisa leh maxaad bannaanka ugu soo baxday haddiiba aadan waddada goy karin waxay ahayd inuu qofku soo wado markii hore aniga iyo ninkaygu wax walba wada jir ayaan u qaban jirnay laakiin waa uu dhintay laakiin hadda wax walba aan wada jir u qaban jirnay aniga keligii ayaa sameeya waan ka xumahay inaan maqlo arrintaas waxaa muuqata ninkaagu inuu ahaa nin wanaagsan sidaas ayuu ahaa adiga ayaaba wax yar i xasuusiyey hadda riyali oo sidee ku dhacday arrintaas mar walba waxa uu jeclaa inuu saacideeyo dadka xitaa dadka uusan garanayn sida aad hadda ii saacideyday oo kale waxaan rajaynayaa inaadan dhibsan su'aashayda laakiin muxuu wakhtigaas badan ugu dhuminayay dad uusan xitaa garanayn waxaan aaminsanahay inuu jeclaa inuu dadka saacideeyo waa inaad i tusisaa dhoolacadaynta wejigiisa oo kale dhoolacadayntaadoo kale ayuu lahaa waxaad leedahay dhoolacadayn qurux badan waa inaad adeegsataa mar walba laakiin waa inay jiraan wax u dhigma dhoolacadaynta ama ka wanaagsan ow haa waxa uu jeclaa inuu dadka qisooyinkooda dhegaysto wax badan ayuuna ka bara jiray ma kuu sheegaa wixii uu dhihi jiray qofkaadan aqoon ay baahidu kuu keentay waa saaxiib aadan weli la kulmin dhammaantood qof walba qiso ayuu leeyahay qisooyinkaasna waxay ka wanaagsan yihiin kuwa aad telefishinka ka daawato qof walba saaciidayn ayuu u baahan yahay mar walba xitaa kuwa aadan garanayn ninkaygu saacidaynta dadka waxa uu ka hormari jiray wax walba hagaag waan xasuusan doonaa middaas waad ku mahadsan tahay sidaad ugu naxariisatay hooyada ah haddana tag si aad u heshid dallacaadaada waad mahadsan tahay hooyo mahadsanid madam ma ku caawi karaa haa mudane waad mahadsan tahay haa wax walba bilowgoodu aad ayuu u dhib badan yahay aniga ayaa kula hagaajinaya madam ma aragtaa aad ayay u fududahay ma xasuusataa mudane wax yar ka hor su-aasha aad i weydiinaysay inuusan aabbahay i barin sida loo bedelo lugta gaariga waan ka xumahay madam ha ii qaban hadalkaas dhib ma lahan mudane laakiin aabbahay waxa uu dhintay aniga oo yar aniga hooyada ayaa i soo korisay ayada ayaana wax i bartay laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aysan awoodin inay i barto sida loo bedelo lugta gaariga tani ma ahan mid sahlan madam hagaag soo diyaar maahan madam aad ayaad u mahadsan tahay run ahaantii sug madam aniga ayaa ku saaciidaynaya waad ku mahadsan tahay mudane inaad u soo laabatay si aad aniga ii saacidayso
waan ka xumahay inaan si xun kuula dhaqmay wax yar ka hor runtii ma mudnid in sidaas lagula dhaqmo la soo qaybta labaad Josh amaalmarin ayuu mutaysan doonaa